bisha barakaysan ee Ramadaan waxa dhalinyarada gobolka Togdheer loo furaa tartan ciyaareed ay ku loolamaan kooxaha kala duwan ee ka dhisan gobolka Togdheer. Haddaba isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa si rasmi ah u daafuray tartan ciyaareed socon doona bisha barakaysan ee Ramadaan. Tartankaasi ay ku loolami doona 30 kooxood oo kala ah Siro iyo sidoo kale Siro B. tartan ciyaareedkan ayaa waxaa si rasmi ah looga daafuray garoonka 6 stadium ee magaalada Burco. Ugu horeynba waxaa ka hadlay qaar ka tirsan bahda ciyaartoyda gobolka Togdheer waxayna go'aansadeen maamulka degmada Burco inay la shaqeeyaan isuduwaha wasaaradda ciyaaraha waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan. wareegga Ramadaan sanad walba stadium 6 waa laga qabtaa wasaaradana way naga caawisaa sportiga iskuduwuna uu nala joogaa waa naga caawiyay. waxaan halkan uga mahad celinayaa marka koobaad qolada qaban qaabisay oo mar walba ku hawlan sanad walba inay halkan inoogu fuliso dib kasto idin gaadhana waxaan jecelahay inaa u dhabar adeegtaan ka wasaaradahaana aanu idin garab taagnaano. طبعا ujeedada tartanka kaleena koow waa inaynu helo entertainment iyo madadaalo xilliga Ramadaan ay dadweynuhu helaan in dhalinyaradu cududooda iyo awoodooda sportiga ku soo bandhigto iyo dabcan isdhexgalkii bulshada oo aan meesha ka maqnayn. waxaan qaranayaa Burco bariga ciyaar jiray anagu wasiirka qodobada wada jiray operasiis Soomaaliya Burco afartii ugu horeeyay oo geedan Burco final bay tigay laba goor laga qaaday laba way soo qaaday marka gobol kasta waxa hormariyay maayirkiisa iyo madaxweynihiisa oo barasabka waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan isduwa cusub. dhan kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Togdheer baaqna u diray bulshada gobolka Togdheer inay ka qayb qaataan tartamada noocan ah waxana uu yiri uma aragtaan maanta garoonkii waxaan joognaa seeladan joognaa ciyaar qiimo iyo qaayalaba ka socota wareeg qiimo iyo qaayalaba ka furmay joog wacan oo fiican oo nabadgelyo ayuu ku socdaa kuna dhamaan doona insha Allah 15 kooxood ee Serbida ugu horeeyay ayaa tartankiisii furmay oo xaflad maanta aan u qabanay 15 dambana insha Allah ee sareeyadana waa qaybta dambe oo noo hadhay sida artaan joog waa joog farxadeed marka dhammaan shacabka Soomaaliland ee gobolka Togdheer meel kasta dibadda gudaha joogaan waxaan ugu baaqayaa inay dhalinyarada gacan siiyaan sidii firfircooni iyo dardar u gelin lahaayeen maadaama isduuci cusub gobolka Togdheer ahay waxaan iga go'an sidii dhalinyarada gobolka Togdheer aan ugu horumarin lahaa gacmaha isu wada qabsan lahaayeen sidii aanu hiiliyo hooyba ugu ahayn magaceena gobolka Togdheer meel kasta oo joogno waxaan leeyahay dhalinyarada way gacan soo siisaan waa in aynu mid ay noqotaa waa in magacii gobolka Togdheer uu ahaan jiray ee horabana lagu yaqaanay in dib u soo ceshan doona insha Allah waxaan anaga naga go'an wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer hadaan nahay inaanu garab istaagno gobolkayga Togdheer. ugu dambeyntii isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer ayaa daafuray tartan ciyaareed ka bilaabmay xaafadda City Plus ee magaalada Burco. wareegii garoonka Balaas ka soconayay qaybtiisa ciidda waxaana kaga hor imanaya 10 kooxood oo sareeyay Serbia isku jira. maanta halkan Balaas ayaan ku sugannahay oo ciyaartoygii Balaas oo wareeg qiimo qaayad ugu socdo waxaan u rajaynayaa in wareegaas uu dhamaado si nabadgelyo leh sidii khayr qabta ugu dhamaado guul bayna u rajaynayaa maadaama aan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha haddana hay isuduwaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer waxaan naga go'an inaan dadgalino dhalinyarada gobolka Togdheer. Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga RTN Burco. Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.